wafdigan wasiirada ah oo dhawaan gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa gelinkii dambe ee maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib kulamo xarunta gobolka Baay kula soo qaateen siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. ujeedada safarkooda ay u tageen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa la xiriirtay sidii ay wada heshiisiin lahaayeen dhinacyada kulamada ku leh magaalada Baydhabo waxaana xubnahan wasiirada kamida wasiirka ganacsiga ee warshadaha Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransoor wasiir dawlaha arrimaha gudaha iyo federaalka محمود معلن يحيى وزير كحجينك أمنية قرنك مدن إبراهيم إساقيرو يحمل كلا وكمدها بروفيسور سالم علي وإبرو وزير كحنانة حولها درت يداق وزير كهداية تعلن تصريح markay ka soo dageen garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxa warbaahinta qaranka la hadlay wasiir ku-xigeenka beeraha xildhibaan Cismaan Ibraahim Libaax oo isagu ka warbixiyay waxyaabihii ay kala soo kulmeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay oo qayb ka sida ay tilmaameen xoojinta wada xaajo dadka deegaanka dhexdooda ah wasiirka wasaaradda beeraha safar gaaban ayaa waxaan ku tagnay magaalada Baydhabo anagoo 8 wasiir iyo 2 xildhibaan iyo safiirka Uganda oo fadhiya Soomaaliya ay anagoo ah guddigaan ayaan u tagnay shirka Baydhabo ka socda ayaan u tagnay runtii anaga waxaan wadnay masjid shirkaasi khaasatan shirkan 6 gobol lagu dhisayo runtii masjidkii aan wadnayn waa u sheegnay marka waxa waaye galabtaan ka soo noqonay waa wada hadalnay shalay aan tagnay shalay subaxii ilaa iyo galabta waa wada hadlaynay marka wixii aan u keenay kulay waxa yiraahdeen annaga dib uga hadlaynay dhaheen galabta ayagoo shirsan ayaan ka soo tagnay marka haddii ay qaataan masjidkii aan u keenay masjidkaasoo ahaa mid maaragtay shirkaasi ka dhigayo mid maaragtay dowladda ay og tahay mideeda kalena natiijada ka soo baxdana aynan gadaasheeda wax dhibaataa aanan ka imaan maadaama meeshaasi shir labaad uu ka socdo annaga labada shirkee raasantiin iyo inaan u qarqaadana meesha ma aadin masaj baan u wadnay gaar ahaan shirka 6 gobol lagu dhisay oo odayaal dhaqameedka u badnaa kaas ayaan aadnay annagoo u sheegayno masajkii aan u wadnay dowladda ugu wadnay annagoo u sheegayno si aysan hadhow u dhicin markii natiijada ay soo baxdo shirka labaadna aanan asagana wax kale loogu dooran oo hadhow dhibaato gacanka hadal aysan u dhicin marka annaga ujeedadeena waxay ahayd inaan gacanka hadal aanan dhicin afka un laga hadlo wafdigan ayaa noqonaya kii labaad ee dawladda Soomaaliya u dirto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay muddo toddobaadyo gudahooda iyadoo dhawaan xubno u horkacayay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ay gaareen magaaladaasi Baydhabo. Cali Cabdulqaadir Cali, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.